Somali News TV ka daawo dacalada dunida. shirkani ay ku qabteen xarunta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID xogayaha warfaafinta xisbigaasi Yuusuf Kaysa Cabdullaahi afayeenka xisbiga Maxamed Xasan Shabash iyo xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka Mudane Cabdiqani Ibrahim Salaf ayaa waxay si wada jir uga jawaabeen eedeymo gudoomiyaha xisbigaasi Injineer Faysal Cali Waraabe kaga yimid garabka xisbiga UCID ee musharax Jamaal Cali Xuseen iyagoo dhanka kalena ka hadlay xeerka xisbiga oo hore garabka Jamaal Cali Xuseen ku sheegeen in gudoomiyuhu aanu xaq u lahayn inuu xilka ka qaado xubnaha ka tirsan golaha dhexe hogaanka sare ee xisbiga shirweyna lagu doortaa laakiin shirweynuhu wuxuu eegmaday inuu gudoomiyuhu sii buuxiyo jawooyinka bannaan xogayihii guud maanaan dooran gudoomiye ku-xigeenkii afraadna maanaan dooran way ka maqayn meesha laakiin gudoomiyaha iyo ka saddexaad beriga intaba gudoomiyaha awood loo siiyay inuu buuxiyo inta laga gaariyo shirweynaha waxaana ansixinaya gudoomiye fulinta isagoo waxaana ansixinaya gudoomiye fulinta inuu magacaabo ama soo dhiso gudiyada xisbiga uu sheegay sida gudida hanti dhowrka gudida anshaxa ee banaanaada inta u dhaxaysa fadhiyada golaha dhexe gudida anshaxa waxa la leeyahay gudoomiye ma magacaabi karo wuu magacaabi karaa shirweynaha saamaandaydu siiyay waa haddii aan golaha dhexe la qaban haddii golaha dhexe la qabto golaha dhexe ansixinay golaha dhexe xisbigu waa lagu dhawaaqay 10 Julaay annagoo dul qaadanayna xogayaha golaha dhexe sifo baal marsan sharciga ayuu ugu dhawaaqay annagu waxaanu soo saarnay August inaanu qabano haddaan gudida fulintan August inaanu qabano shanteeda annagoo eegayna duruufaha xisbiga midna qurba jooggiyo imanaya rabadaantii soo galaysa diiwaangelintii dalka ka saddexaas sabab baan ku sabray isagu ku dhawaaqitaan buu leeyahay awood uma laha waxaan anagu soo gudbinay inuu suuq wax ka bedelo xogayana waxaan leeyahay wuxuun baa lagu sheegaa wax akhri horta xeerkan xisbiga akhri ku xigeenkaagu buu joogaa kugumu raacsanayn maalintii annaga ka qabanay media ku xigeenka isagoo leewan jawaabay annaga joojinay annagoo ilaalinayna dhaawaca xisbiga waa awrkiyaale la soo dirtay nin mas'uul oo murashaxi oo xisbiga cod ka doonaya wuu soo dhex fadhiistaa diyaar baa loo ahaa asxaabtaydan fadhida iyo in kale oo maqalba diyaar baa afkiisu qof walba ku doontay Jamaal oo halkiisa uu ku weerar inuu soo dhex fadhiisto ilaa iga qabta haddii gudoomiye ay sayaan xaq wuxuu u lahaa mas'uuliyad inuu muujiyo uu dhex yimaado ilaa waarda iga qabta gudoomiyaha laakiin inuu ka caaytamo kolba meel u cararo may ahayn waa uu sheegay ninka la yiraahdo sabci uu yiri sir baan hayaa oo haddii 48 saacadood aad ka jawaabi weydo waan gudoomiyaha sir aanan ogeyn oo xisbigu leeyahay ma jiro waxaan leeyahay sabci hablaha yaryar baa sir baan ka hayaa ila ummadu rag waaweyn oo cirra laba inuu nahay ma nihiin habla yaryar sirtaad hayso daqiiqada imika siida afxumo colaadna way ku gelisaa afxumo colaadna waxba kaagama tarta dagaal way ku gelisaa way doonaan inaan qaldinay waxyaabaha uu ku caytamay warbaahinta ka sheegay waxa kamid ah uu Faysal Cali Waraabe ku sheegay nin murtado diinta ba haysan wuxuu diinba ma haysta Faysal Cali Waraabe dadweynaha reer Soomaaliland way garanayaan Faysal Cali Waraabe wuxuu galay wuxuu gudo dalkana markii uu ku soo noqday ee uu yimid siyaasadda dalka ninkii wax ka bedelay weeyay markii Maxamed Ibrahim Cigaal xisbigii ugu horeeyay udub uu aasaasay dad fara badan oo maanta reer Soomaaliland oo siyaasiyiin cid walba isugu jirta ay walaaca ka muujiyeen ay la tartamaan xisbiga samaystaan ninkii ugu horeeyay ku dhiiraday xisbiga UCID sameeyay Faysal buu ahaa Faysal maanta dalka dimuqraadiyadiisa iyo horumarkiisa iyo deganaanshihiisa wax weyn buu ku soo kordhiyay Yacquub Saciid Kuriya Somali News TV Hargeysa